shirka maanta gabagabadiisii waxaan u go'aansanay in madal wadajir loo sameeyo xisbiyada waaweyn ee qaranka madashaasoo magaceeda la yiraahdo madasha xisbiyada qaran oo marka Ingiriis loo soo gaabiyo noqonaysa Forum for National Parties ujeedooyinka ugu waaweyn ee madashaan u sameynay waxa weeye in la helo oo xisbiyada qaran ay ka yeeshaan talo midaysan arrimaha taagan ee qaranka saameynta weyn ku leh oo ay laga wada yeesho talo joogto ah oo lagu saxayo wixii qalloocda laguna taageerayo wixii saxan ee qaranku u qaado jihada saxda maanta waxaan markaa halkan kaga dhawaaqnay structure ama nidaam iyo maxaa la yidhahdaa sidii uu u dhismi lahaa madashaas sidii ay u dhismi lahayd waxaanu go'aansanay in madashaasi ay yeelato gole sare iyo sidoo kale inay yeelato xoghayeyaasha secretariatka yani gole ay ku midaysan yihiin xoghayeyaashu iyo gole ay ku midaysan yihiin hoggaan midaysan oo sare hoggaanka midaysan ee sare wuxuu ka koobnaan doonaa xisbi kasta hogaamiyihiisa ama qofka koowaad ee xisbiga hogaamiya ee ugu sarreeya golaha xogeeyayaashuna wuxuu ka koobnaan doonaa xogeeyayaasha guud ee xisbi kasta ujeedada guudna waxay u tahay in la mideeyo foorumyada ama kala duwan si ay u soo saaraan oo ay aragti midaysan u lahaadaan shirku wuxuu socon doonaa maxaa la yidhahdaa wuu sii socon doonaa ilaa inta uu ka gaarayo ujeedooyinkiisa waxaan maanta markaa u magacaabnay si arrintaa looga midhamaliyo ummadda Soomaaliyeed ay u hesho meel aragtiyadeeda laga maqlo oo laga fidiyo waxaan maanta magacaabnay afhayeen kumeel gaara oo ah xildhibaan hore Cabdilatiif Muuse Nuur oo ku magac dheer Sanyare inuu noqdo afhayeenka madasha shirka maanta markaa waxaan ugu talagalay kaliya inaan ku dhawaaqno forumkaas ama madashaas wixii dambe ee warada ee ka soo baxana waxaan idinla socodsiin doonaa kolba sidii loo qabto saxaafadda ula wadaagi doonaa ula yeeli doonaa waxaana lagala xiriiri doonaa safaaradda ay la soo xiriiri kartaa Cabdilatiif oo garwadeen ka noqon doona forumka iyo xiriirka warbaahinta iyo wixii aanu soo saarnay ummadda Soomaaliyeed la wadaago sidoo kale coordinationkeeda iyo in isku beddelkeeda ka noqon doona mas-uul marka intaasaan maanta isugu yeernay waa mahadsantihiin su-aalaha waxaan dhigan doonaa maalin kale xisbiyada ugu waaweyn ee qaranka ka jira weeye maanta wax su-aalaha qaadan mayno waxaanu ka jawaabi doonaa su-aalaha shirkigu noo socdaa waa isku soo noqon doonaa oo noo socdaa haddana waxaan kusoo wareejinayaa Sanyare oo kelmadiisa halka ka oran doona waa mahadsantihiin madasha iyo wixii ka soo baxay xashar oo faahfaahiyey waqtiyada dambe oo soo socda shirku waa socon doonaa waa heli doontaa waxyaalaha ka soo baxa canaha shirkuna waa toosinta yani himilada ummadeed ee loo socdo iyo ilaalinta dimuqraadiyadda iyo amniga iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo federaaleynta horumarinteeda dabcan intaas uu ku dhex wareegi doontaa waad heli doontaa maalin soo baxa waa mahadsantihiin